waxaan rabnaa inaan isla hagaajino hero sectionka. So hero sectionka marka si aan u dhisno waxaan ku dhufanaynaa edit page markaan ku dhufano ayaan haddana waxaan kusii dhufanaynaa edit with elementor markaan kusii dhufano ayuu wuxuuna geenayaa elementor ayuuna geenayaa. Kadib elementor markaan geeyo ayuu elementor saas ayuu nagu saarayaa. kadib markaan rabo inaan abuuro marka meeshaan aan ku dhufanayaa. kadib meesha markaan macnaheedu waxa weeye waa section ku dar waaye oo hadda markaan meesha hadda ku dhufto oo baashaas guduudka camal oo kale calaamadda plus ka wata kadib wuxuu isiinayaa marka container uu isiinayaa. containerada marka waxa waaye tan koobaad haddii rabto container weyn, haddii rabto marka laba container. So anaga waxaan dooranayna marka container weyn ayaan dooranaynaa. markaan containerka weyn doorano ayaa waxaan leenahay harta heightkiisa waxaad ka dhigtaa min height so u yara dheeraado hadda. oo containerka koowaad markaan doorano waxaad arkaysaa inuu ku dhex jiraan marka text iyo sawir. so taas waxaa la dhahaa marka inner section baa la dhahaa. waa section kusii dhex jira. hadda containerkan yani ama sectionkan waa section kale kusii dhex jira. laba section baa kusii dhex jira. meeshaan tagayaa xaggaasaan ku dhufanayaa. markaan xaggaas ku dhufto calaamadaas yani hamburgerka ama dhibicda camal ah kadib ayaan waxaan dooranayaa inner section. waan soo jiidayaa kadib aan xagga ku dhex tuurayaa. marka inner sectionka markuu laba qayb kuu dooro ayaan qaybtan koowaadna waxaan gashanaynaa waa sawir, qaybtan kalena waxaan gashanaynaa waa text. si marka qaybta sawirkan ku hormaraynaa calaamadaasaan ku dhufanayaa mar walba. kadibna image baan tegayaa, image baan soo jiidayaa kadib ayaan xaggaan ku dhex tuurayaa. markaan xagga ku dhex tuuro marka ayaa waxaan dooranayaa haddana sawirkii. okay sawirka waa kana. kadib ayaan waxaan leeyahay instead. kadib markaan doorto sawirka waa kaa sawirka xaggaas aliya soo geliyay. si xoogaa meesha u yar qurux badnaato ayaan container koowaad baan wax yar style garanaynaa. edit section baan tegayaa. kadib markaan edit section tago ayaan stylekiisa ayaan yara bedelayaa oo color waxaan gelinayaa. marka background baan ku daranaa color ah. marka haddaad rabto background color inaad ku dartid waxaad tegi kartaa background type kadib classic meeshan koowaad haddaad rabto ma color iska caadiya ma laba color oo isku dhex jira gradient ma color isku dhex jira rabtaa ma video rabtaa ma slide show rabtaa adag ku jirtaa markaas. marka classic baan u dooranayaa. kadib ayaan color baan sii dooranayaa. kadib ayaan waxaan gelinayaa color madow ah. wakaas color madow hadda loo dooray oo sectionkii koowaad oo weynaa ah. okay sawirka waan soo gashanaa hadda. kan kale ayaan u tegayaa marka. kan kale saan usoo gelina marka taada weyn baan soo qaadayaa textiga. okay waan ku dhex tuurayaa. markaan ku dhex tuuro inta ayaan wax ku qorayaa marka Ibrahim Ahmed. okay hadda kor ayay jiraan. marka waxaan rabnaa inaan dhexda aan keeno. si markaan dhexda u keeno waxaan ku dhufanayaa yani sectionkan aan ku dhufanayaa qaybtan. kadib ayaan meeshaan vertical align ay ku qorantaa ayaan waxaan ku dhufanayaa marka middle. kadib text wax la keenayaa dhexda la keenayaa. okay textiga haddaan marka style garayno style baan tegayaa. kadib ayaan waxaan leeyahay colorkiisa waxaad ka dhigtaa color noocaasa cagaar ah. fartiisana waa weyne waxaad ka dhigtaa 40 pixel oo farxooga yar weyn. okay so text kale ayaan haysanaa oo ay ku qoran tahay design, ay ku qoran tahay developer and designer. marka mar walba yani inaad inta xaggan tagtid oo haddana aad saa tiraahdid waa samayn kartaa laakiin waxaa ka fudud inaad tusaale kale kan oo kale aad tiraahdid duplicate oo markaas kan inaad laba ka dhigtid kadibna aad style garaysid kan oo aad ka bedesho tusaale kale aad tiraahdid developer si xoogaa shaqada kugu fududaato. kadibna aad tiraahdid aan designer saasaan ugu qoran soo developer and designer. so way kala bedelan yihiin. kan hadda fartiis inaan yareyno waaye iyo maaragta colorkiisa. colorka waxaan ka dhiganaa color caddaana ff baan leeyahay. color caddaan laga dhigay. okay color madow miyaa laga dhigay. okay sidoo kalena fartan waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa ilaa 30 ka dhig oo yaree ilaa 30 Soomaali ilaa
ama ilaa waxaan ka dhiganaa 30 xogaa yara weyn tahay ilaa 25 okay marka aad u kala fog yihiin marna inay aad u kala fogaadaan waxaana inay xogaa isku jiraan wax yar inay xogaa isku yar jiraan marka waxaan sameynayaa meeshan advanced ay ku qorantaan tagayaa kadib ayaa waxaan leeyahay margin top waxaad gelisaa -20 okay -20 okay waaye -20 okay waaye okay sidoo kale waxaan sameynaynaa marka inaan soo qaadno text editor oo text inaan inta dhex ku tuurno okay text markaan inta dhex tuurno marka text baan loo dooray textigaasna style baan leenahay colorkan ka bedelnaa asaga color kaliya ka bedelnaa colorkan ka bedelnaa asna oo color cadaan ka dhiganaa marka asaga wax kale kama bedelnaa kaliya colorka baan ka bedelnaa oo size-ka oo hatta daarna size-ka weynaan karnaa laakiin size-ka hadda uu noo yahay baan ku dooranaa waxaan kaloo aan ku xijinaynaa waxa waaye waa in aan soo qaadano containerkan ama mataqaanaa tiradan camal oo kale ay ku qoran tahay 10 plus camal oo kale iyo 30 plus iyo textigan marka meeshaan ku dhufanayaa kadibna waxaan ku qorayaa counter okay counter wiisu bixi lahayn maxaa dhacay okay hadduu kuu soo bixi waa kaliya waxaad tagtaa waxaad meesha ku qortid ama magacii si khaldan u qortid oo kale intaad tegi kartaa kadibna intaad ka raadin kartaa kana ujeeda counter soo qaad oo kaas counter saas lagu dooro marka okay 100 buu noo yahay 10 aan ka dhiganaa plus na waan ku daranaa marka meeshaas ay ku qoran tahay plus ku dar plus na waan ku daranaa sidoo kalena intana waxaan ku qoranaa marka happy client waxaan iskaga qoraa happy client okay kadibna marka waxaan leenahay stylekiisaan hagaajinaynaa stylekiisaan hagaajinaa marka colorkan ka bedelinaa colorka waxaan ka dhiganaa color green ah okay sidoo kale marka colorkan hoosena waa rabnaa inaan bedelno title baan tegaynaa waxaan ka dhiganaa asna color cadaan ah color cadaan ayaan rabnaa inuu soo baxo sidoo kale marka waxaan rabnaa inaan aad u weyn yahay inaan yareyno si markaan u yareyno waxaan tegaynaa okay advanced way ahead advanced markaad tagtid ayaad widthka waxaan leenahay marka waxaad ka dhigtaa customize markaa ka dhigtana marka waa ka geesku isgeeyay so widthka hadda waxaan ka dhigi karnaa soo kale saas yar weynayn karnaa widthkiisa asal kale okay so waxa arkaysaa inaan laba haysano waxaan sameeynaa marka inaan dhaho duplicate okay duplicate baa laga dhigay marka laba laga dhigay kan kale marka ayaa waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa asaga daati okay sidoo kale waxaad ku qortaa project daraba kan iska soo koobiyay project down okay kadib ayaan waxaan leenahay marka xoogaa inaan size ahaan inaan yareyno waaye marka saan sizekiisa u yareyno waata wax yar aan kala durjino okay wax yar aan ka durjinaynaa marka waxaan leenahay sizekiisa u yareyno ayaan waxaan tegaynaa content style baan tegaynaa kadibna waxaan dooranaynaa marka size-ka okay size-kiisa waxaan ka dhigaynaa okay ilaa okay 35 okay waaye 35 style okay 35 okay waa hadda waa isleeyihiin waxaan kaloo ku xijinaynaa waxa waaye aan haysanayno waa buttonkaasna si toos ah soo gelinaynaa buttonka markaasna waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa buttonka textiga ku qoran waxaad ka dhigtaa me sidoo kalena waxaan leenahay icon iyo waxaan kuma darayno
style kisan tegina marka aan qurxinayna colorka waxaan ka dhignaa marka colorkeeni 88 okay text colorna okay cadaan buu noo yahay ma rabno inaan ku soo darno marka padding baan rabaa inaan ku daro padding waxaan rabaa inaan ku daro aad buu yar yahay kan xoogaa aad buu dheer yahay horta border radius baan ku darayaa 5 pixel oo hareeraha laga gelinayaa marka border radius marka padding baan tegayaa padding markaan tago waxaan leeyahay inta waxaad ka dhigtaa 10 top iyo bottom waxaad ka dhigtaa 10 left iyo right waxaad ka dhigtaa 20 okay hadda daan isla aragno marka okay صح waaye saas noo yahay ama samayn karnaa haddaan ka sii yarayno hadda soo noo yahay and I know 15 okay 15 buu noo yahay marka sidoo kale waxaan rabaa hoos meeshan ku dhigan inaan kasoo qaado kasoo durjiyo advance aan tagayaa kadib waxaan leeyahay margin ka qaado tigta ujeedaan tigtaan ka qaadayaa waa tigta top oo kaliya rabaa inaan doorto marka tigtaan ka qaado waaye waxaan leeyahay 20 okay 20 kasoo dig okay so textigan hadda saas uu nagu jiraa meesha sidoo kalena sawirkeenu nagu jiraa sawirka waxaan rabnaa inaan ku darno sawirka haddaad aragtid meeshaan fiiriya intuu ku dhagan yahay sawirka hoos yani space uma dhexeeyo marka si taas aan u sameyno waxaan leenahay taas aan u sameyno advance aan teginaa sawirka ku dhufano kadibna waxaan leenahay bottom waxaad gelisaa -10 okay -20 yeah sax waaye -20 ayuu noo yahay okay update baan leeyahay marka saan iskula aragno waxaan sameynaya update markaan dhaho ayaan haddana waxaan ku dhufanayaa meeshan isha camal kadib ayuu tusayaa website-ka soo eegaya marka qaabku u eegyahay ayuu tusayaa exactly soo eeka waa website-keeni marka hadda website-keeni waa kana saan u eegi oo waa sida aan u sameyno waaye okay sidoo kale waxaan rabnaa inaan isku darno marka yani meniyaha iyo inaan ku darno yani meniyaha yani qaybta hero sectionka waxaan sameynayaa customize baan tegayaa customize markaan tago ayaa waxaan dooranayaa header builder kadib markaad header builder dooratid meesha ay ku qoran tahay transparent header ayaan ku dhufanayaa kadib markaan ku dhufto ayaa waxaan leeyahay enable on completely website kadib calaa saas u saar kadib publish markaad tirahdid ka qaad markaa ka qaadi waa kaas website-kani si toos ayaa hadda wuxuu noogu dhisan yani hero sectionka oo qaybtaana waxaan looga dhigay yani madow oo color madowna loo geliyey oo waxaan lagu dabaqay ama lagu daray camal oo kale qaybta hero sectionka exactly hadda saan u sameynay waa sidii aan website-ka camal u sameynay marka hadda qaybtan hero sectionka saasay noogu dhamaatayba waa hadda isku mid inay yihiin baan rajeynayaa okay so waxaan ku xijinaa waxa waaye waa qaybta marka surface-ka aan ku xijinaa qaybta marka surface-ka